بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan qaadanaynaa jabtarkan jabtarkan inta badan waxa loo yaqaanaa ishaq wuxuu fundamental u yahay classes iyo waxyaabihii kale oo dhan jabtarkan inta badan lama dabaqo inta badan muxuu ahaa lama dabaqo laakiinse waa shay aad u fiican una baahan karto shaqooyinkiisa iyo howlihiisa jabtarkan wuxuu ka hadlaa package wuxuu ka hadlaa interface iyo classes waa soo qaadanay laakiinse dhamaystir wuxuu yahay classyada macluumaad kale oo aan hore loo sheegin ayaa inta ku dhamaystiranayna insha Allah jabtarkan marka mawduuciisa cinwaankiisa marka laga soo tago waxaan ku baranaynaa qaabka loo controlo accesska oo methodka ama variable-ka oo class-ka dhexdiisa ah si loo maamulo yaa arki karo yaasan arki karin waxa loo yaqaanaa modifier iyo wax la mid ah waxaan ku arkaynaa class kasta wuxuu leeyahay hore u sheegnay variable ama filiyo iyo method class-kaas muxuu ahaa soo yaa arki karo variable-daas iyo method-kaas qaabka loo maamuli lahaa ayaa muxuu ahaa insha Allah ka arkaynaa waxa sidoo kale arkaynaa qaabka loo finalize gareeyo dabcan final hore waa soo aragnay variable aragnay variable hadduu final yahay waxaan dhahnay waa constant oo waa shay aan isbedeleen laakiinse finalka kuma eka variable kaliya waxa sidoo kale final la saaraa method iyo class variable-ka waxaan dhahnay waa constant oo ka dhigaa qiimaha aan isbedelaynin oo ka dhigaa method iyo class-ka laakiinse isaga finalka macno kale uu leeyahay ayadana waa arki doonaa waxaa sidoo kale arkaynaa abstract class iyo abstract method oo yeelan karo dabcan super class-ka waxa mar walba abstract noqonayo waa super class kuwa kale waxay noqonayaan sub class waaye abstract lagama dhigo okay sidoo kale waxaan arkaynaa classeska sidee group loo sameeyo macnaha inta islahba in hal meel lagu xiro oo shaqo ama wax ka dhaxayso oo lagu xiro kuwa kale meel kale lagu xiro aysan is arki karin macaamilka dhaxay karo macaamilkoodana dabcan qaabka u dhaxaynaya isigana waa arkaynaa ay isku arki karaan laakiinse inta classyada isku shaqada ah ama hab loo sameeyaa jiro groupingka marka in group loo sameeyo tusaale ahaan wuxuu dhan waan qaadanaynaa iyo inaan isticmaalno interface inaan isticmaalno interface-kaas wuxuu bridge yahay buundo yahay class hierarchy muxuu ahaay waxa u dhaxeeyo gaabka u dhaxeeyo si kale hadaa loo dhaho interface waa class camaloo la mid yahay waana kaga duwan yahay class waa shaqo dhammaystiran halka interface-na oo noqonayo isagana shaqo oo adiga aymanaysa marmarka qaar waxaa jiro howl walba oo aad u baahan tahay in lagu sii diyaariyo waa adiga aad fulsid iyo mar waxaa jirto oo howsha la qaban lahaa aysan cayimeen maxaa la qabanaa ma cayimna waxaa laga yaabaa qofkan si gooni ah inuu wax ugu qabsado qofkaanna si gooni ah inuu wax ugu qabsado oo isla halkii shay in dhowr siyaabood loo isticmaalaa laga yaabaa marka shaqada noocaas oo kale ah oo hal shaqo dhowr shaqo noqon karto ayaa waxaa loo sameeyaa interface waxaan ku hormaraynaa modifier waxaa hore u sheegnay qaabkee loo controlo accesska waxyaabaha lagu controlo waa modifierada Java waxay leedahay dhowr modifier waxaa ka mid ah modifierada lagu controlo accesska oo class-ka ama variable-ka ama method-ka waxaa kala lahaa public
protected iyo private waxaa lagu controlaa saddexdan access control way waxay maamulaan yaa arki karo shaygan modifierka kale waa static hore soo aragnay static modifier wuxuu sameeyaa class variable iyo method class variable iyo class method ayuu sameeyaa final keyword isagu wuxuu sameeyaa hore saan u sheegnay variable-lada wuxuu ka dhigaa constant qiimo aan isbedelayn class-ka iyo method isagana wax kala loo isticmaalaa waa arki doonaa waa sharxeena waxa kamid ah abstract method kamid ah oo lagu sameeyo super classes class oo aan maxuu ahaa si toos lala macaamilayn laakiinse xogtiisa loo baahan yahay waa class abstract class waxyaabaha laga dhigayo waxa waa inta badan horena ku soo arki doonaa waa class hadafkiisu uu yahay kaad macnaha wax in lagu keensado kale sida hadda class aan sameynayna ayaa naxdaas oo class student naqshadaas sameynayna student soma naqshadaas inaan shaqo ku qabsan hadafkeena ma ahana waxa ahaa hadafkeena in xog noo kaadiyo xogta ardayda oo noo kaadiyo xogtaas waxa qaadanayo isticmaalayo class kale oo shaqo qabanayo sidoo kale sida loo isticmaalo synchronized iyo farqiga u dhaxeeyo volatile ama synchronized iyo qaababka loo isticmaalo jabtarka midkaan laakiin waxa inta badan lagu arkaa jabtarka dambe synchronized iyo volatile waxa isticmaali doona jabtarka dambe marka modifierada jiro waa inta kore afarta kore insha Allah waa arkeena xisada jabtarkan qaabkee loo controlaa marka qaabkee loo controlaa method iyo variable saddex shay ayaan sheegnay ilaa mid kale oo afraad la raaciyo oo default ah markaan class-ka sameynayna inta badan filiyada waxaan dhahanay markaan sameynayna for example int markaa dhahdo oo variable kan for example tusaale ka soo qaad wuxuu ku jiraa class dhexdiisa ayuu ku jiraa variable kan waxaan rabnaa qaabkee loo control karaa class-ka dhexdiisa access-kiisa netbeans kana aan kacsano hadda waa hab default ah habkan waxa loo yaqaan waa defaultiga waxa laga dhex arki karaa class-kaas uu ku magacaaban yahay iyo class-ka ay yihiin same package waa arki doonaa gadaal ugu tageena package maxaa lahaa iyo qaabkuu yahay same package hadda laakiin soo koobno package jaamacadda dhowrkan bas ay leedahay sidoo kale waxay leedahay class kasta wuxuu leeyahay professionkiisa gooni iyo shaqadiisa iyo hawshiisa ama kala sareynta heerka oo markaas marayo inta isku class-ka ah oo halka qol ku jirto shaqooyinku waa isdhaafsan karaa qalinka isdhaafsanayaan wax walba waa isla isticmaali karaa waa isla wadaagi karaa halka qofka class-ka kala ah midkaan ugu dhagan oo kala ah markuu u baahdo inuu muxuu ahaa qalinkan soo qaato oo u baahan yahay inuu marka hore horta class-ka soo dhex istaago oo soo raadiyo oo haddana in loo ogol yahay in kale haddana oo weydiiyo waxaa laga yaabaa class-yada ardayda inay sidaas muxuu ahaa isugu fiicneen oo wax isweydiisan laakiin class-ka intuu ku dhex jiro si kasta isugu fiicneen ama macaamil ka dhaxeyn haddana qalinka diib wax ma aha ay ka hadlaan soo ma okay tusaale haddana halka class ardayda ku jirto ayaa waxaa laga yaabaa laftigooda in ay waxna wadaagaan waxna ay ism wadaagaan tusaale ahaan mobiladoo kale waxaa laga yaabaa khusuusiyaad inuu qof ugu jiro mamnuuc ay tahay in telefonkiisa la taabto oo kan telefonka maya maxaa u baahan tahay
shaygaas anaa ku diraayo oo isaga la'aantiis aadan isticmaali karin qof waxaa laga yaabaa taleefankiisa miiskiisa saaraya qofka gacanta ku dhigay iska isticmaalayo wax walba u binota caadi ay ka tahay soma waa maamulidda package-ka waxa waaye in xindaab loo sameeyo intii xoogaa isku shaqo ah ama isle xindaabkaas waa group way marka tusaale ahaan waxaa kasoo qaadanaa kalaaskan oo aan ku dhex jirno fasalkan oo aan ku dhex jirno fasalka intuu ku dhex jirto laftigeeda xataa marmarka qaar wax kala xadido oo qof walba wixiisa u gaar ah dabcan qofka aan ku fasal ahaynna sidaasoo buu xadidan yahay hadda ardayda soo galaayo kursi xataa u baahdo inuu baabka soo istaago fasax qaato waay macnaheedu hadduusan joogin xataa kaabgalaas kursiga waan baahanahay dhaho waay halka qofka gudaha ku jiro kursi oo doono iska soo jiidanaya iska fadhiisanayo macnaha xeedaabkaas waxa loo yaqaanaa package feelasha waxa la inta badan hadana laga soo qaaday dadka xafiisyada ka shaqeeyo kale feelal ay galalay jiro Soomaa feelkaas wuxuu hayaa shaqo gooni ah oo loogu talagalay for example finance oo kale feel gooni uu leeyahay feelasha noocaas oo kale waay marka package-ka waa xeedaabka lagu xiray access control kana waxa waaye class-kan oo as class Java class maaha fasalka class-kan oo Java ah wuxuu leeyahay isagana yaa arki karo yaasan arki karin isagoo ay ku jiraan hal meel oo kale oo hal package ay wada mid yihiin ayaa haddana la maamulaa access-kiisa حسيت هو راح نوصل من صناعي إيشك راح نوصل من صناعي كلاس بني هنوصل من صناعي إيشك وحنوصل من صن فيري وحنوصل من صن لما كلاس كان إيوه كلاس كان أيام نوصل مسمع لبعض كلاس وحيكون ده جيران هل فيل لو يكان IT05 أيكون ده جيران فولر كان أما فايل كان أيوه حلو يكانا باكيج لبعض كلاس وحيكون ده جيران دمان توت at the same package هل باكيج أيكون سكول جيران مركز كلاس كان أو noo samaysan midkan iyo midka kale oo student la hayo waa laba class-ka marka waxa noo samaysan door field yaa noo samaysan ID name address telephone iyo gender iyo wax la mid ah midkan waa habkii default-ga ahaa wax access ah ma laga hormarin public ma laga hormarin protected laga hormarin private ma laga hormarin marka noocan yahay waxa loo yaqaanaa default access waxaa laga arki karaa kalaasyada oo same package ah kalaasyada ay hal package iskula jiraan sida labadan class waa the same package Soma okay midkan class-kan kale waxa ii suurtagelayso sida hadda meesha ka muuqato kale هذا وحنا هاي student class وحنا سميته object of student class object يعني أحمد أقولها وحنا ربا أنا access جرايو ID محوها private Soma ويجحريه ما دام هو private ده دوت مركان به ID متجر ما أركي كري ما أنا لفلجري كري halka midkan oo name-ka ah waa default access Soma default access-ka midka ah waxa ii suurtagelaysa inaan dhaho .name waana soo baxa marfan variable-da ama method-yada oo class-ka leeyahay haddii oo default yahay waxa laga dhex arkaa
package-ka wixii ay ku jiro dhan waa laga arki karaa. private markuu yahay wuxuu u gaar yahay class-kaas uu u dhex magacaabo. ID hadda ma arki karin. Okay, labadan class waa laba class kala madax banaan. laba class oo kala madax banaan waay. marka uu yahay private waxa laga yaabaa class-kan in laga dhigo super class ama parent class. waxa laga yaabaa in la sameeyo parent class mid dhaxlaayo class-kan. xataa haddii class-kan la dhaxlo markuu private yahay ma arki karo midka dhaxle. wuxuu qaas u yahay class-kan student-ga ah. xindaabkan qoyskan iyo qoyska class-ka ku dhamaado ayuu ku egyahay. ma arki karo qofka dhaxlay. ayagu waxaa saddexeeyo oo afreeyo waxaa saddexeeyo public in aan public isticmaalno sida midkaan oo kale inta badan waxaa laga dhigaa public. midkaan markaan leeyahay maxaan ka wadaa waa class variable iyo class method labadooda waxaa laga dhigaa accesskooda public sida caadiga ah sababtoo ah meel walba ayaa laga arki doonaa. waxa ay ka afareeyo accesska kala afareeyo waxa waaye in ay isticmaasho protected wuxuu ka xadidan yahay oo ka xayiran yahay class-yada ka baxsan package-ka. sida hadda tusaale midkaan waa name waa another class laakiin at the same package oo iskugu jiraan. haddii aan dhahno .name si aad ujeedid waa uu shaqeynaa sababtoo ah waa the same package. sidoo kale afartaas ayaa lagu controlaa accesska Java isagoo kooban intee laga arki karaa yaa arki karo qaabkee lala macaamilaa isagoo koobanna jadwalkan ayuu ku xusan yahay. waxaa yaal afar modifier waa public protected default iyo private waa afartaas. midka public-ga ah waxaa laga arki karaa visibility-giisa fiiri from the same class-ka laftigiisa la dhex joogo waa la arkaa dhammaantood waa same. class-kaas marka lagu dhex jiro sida hadda student class-kan markaan ku dhex jirno mid kasta oo afartooda ah public ha ahaado private ha ahaado ama protected ha ahaado ama default ha ahaado dhammaan class-kaas dhexdiis waa laga dhex arkaa. waxaan labeeyo from any class at the same package class kasta laakiinse hal package ay kamid yihiin sida hadda labadan class oo kale labadan class oo noo samaysan waxaa noo samaysan IT midkaan ku qoran tahay iyo midkaan student ku qoran tahay. afartooda waa laga arkaa marka laga reebo private-ka haddii hal package ay isugu jiraan la arki maayo. ma fahma class-ka dhexdiisa bas laga arki karaa wixii private ah class-kaas inta la dhex joogo kaliya la arkaa laakiinse la arki maayo haddii class-kaas mar banaanka looga baxo. waa same package waa any class ay ku jiro at the same package. hadalkeena waa kan waa package-ka midkaan waxaa ku jira laba class soo ma waa bada karaan wixii meeshaan ku jiro haddii mar private yahay kan wixiisa gaar ay u noqonayaan kanna wixiisa gaar ay u noqonayaan hadda mar private baho. midkaan variable private u ah inta ma laga arki karo sida tusaale ahaan hadda midaan sameynayno oo kale inta .name waa dhahnay sababtoo ah private ma ahan laakiinse ID markaan dhahno
ID private oo noo ahaa ma arki karno outside classkaas xataa haddii yihiin at the same package waxaa kaloo soo haray from any class outside package hal package hadda noo samaysan packageada waxaa laga yaabaa inay bataan oo aan kala xirxirno aa laga yaabaa haddaa saas u kala xirno oo laba package ama saddex package noo samaysan tahay class packagekan ku jiro class kale packagekan kale ku jiro sidee isku arkayaan haddii oo public yahay waa is arki karaan haddii oo protected yahay ma arki karo protected hadduu yahay classkan wixii protected u ah for example dhaladan oo kale classkan ayay khuseedaa oo fasalkan ayay khuseedaa fasalkan inuu soo baxo ama macalinka soo baxo dhaladaa rabaa ma dhihi karo ilaa oo fasax maamulka soo warayso waa protected macnaha wax u gaar ah shayga packagekan default hadduu noqdo isagana laga arki maayo oo variable oo default ah hadda waa noo samaysnaa sida midkan aawe midkan oo kale waa default packagekan keliya wixii ku jiro ayaa arki karo another package haddaan sameyno ma arki karo from a subclass waa subclass waxa waaye classka la dhaxlay okay waxaa laga yaabaa marka subclasskaas inay hal package isugu jiraan hal package oo hal folder ama hal gal ay ku wada jiraan labada classka waxa dhaxlaya hadduu isla classkii loo yahay oo macnaha oo packagekii hal package ay ka wada mid yihiin publiga wixii ah waa la arkaa wixii protected ah waa la arkaa wixii default ahna waa la arkaa ayakana wixii private ah laakiinse la arki maayo waxaa soo hira subclass classka la dhaxlay laakiinse aanan ku jirin same package waxaa laga yaabaa laba class ama laba hall oo laba meel kala jirto inay is dhaxlaan laba shay aan shaqo isku lahayn inay is dhaxlaan xogtooda ay muxuu ahaa kala faa'iidaan waa midka loo yaqaan superclass iyo subclass kala meel jiro ayaa is dhaxlaya ayaa extend loo sameynaa laba package ay ku kala jiraan laakiinse haddana waa is dhaxleen variablada ama methodyada publiga ah waa la arkaa protectedka midka ah waa la arkaa sababtoo ah wax kasta haddii aad oo xakamayso famalka iyo qoyska ma ka xakamayso soo ma telefonkaada waxaa laga yaabaa in ay dad kula isticmaalaan oo kula taaban laakiinse haddana walaalka yar iska qabsado aabba iska qabsado cunuga dhashay iska qabsado haddana waxuma aragto soo ma wixii protectedka ah wixii dhaxlay ayakana waa arki karaa defaultiga variableka ah laga arki maayo haddii mar package outside package yahay hadduu rab ha dhaxlo ma arki karo privatekana isigana meel lagu arki karo male okay si haddaa loo soo koobo variablada publiga ah ama methodka publiga ah meel kasta waa laga arkaa packageka ha ka mid ah ha ka baxsanaado iyo wax la midka ah protectedka waxaa arki kara keliya class kala dhaxlay macnaha class dhaxlay meel kale ha jiro classkaas dhaxlaya hadduu rabo iyo wixii hal meel iskugu jiro wixii hal meel oo hal xindaab wada jiro defaultiga midka ah waxaa laga arkaa same package wixii ah dhaxal sidii shaqo kuma leh haddii marba oo halkan feel ama halkan gal ay iskugu jiraan waa is wada arki karaan privateka classkaas lagu dhex magacaabay keliya ayaa maamuli kara isticmaali kara meel kale waa ka mamnuuc
okay public qeexitaanada aan waxyar u laabano qeexitaanada waxyar u laabanayna default access waa variablada ama methodka lagu declare gareeyo without any modifier variable ama method oo aan wadan wax modifier ah maxaa leenahay waxa waa sida hadda kan oo kale data type la sheegnay magacii kadib method kan oo kale variable kan data type magacii wixii noocaas ah maxaa leenahay default access waa public access ka maya private access waaye private access waxa waaye in aad qariso si complete ah in aad qariso method ama variable kana ilaaliso from being used in la isticmaalo by other classes classyada kale same package ha ahaadaan ama outside package ha ahaado class aan ahayn haddaad rabtid inaad ka xanibto oo aad ka jarto waxaa leenahay waxa waaye private access waaye private access laba shay oo muxuu ahaaye ku siina waa marka kalaasyada kale aysan lahayn wax sabab ah ay u isticmaalaan variablekan shaygan keliya u gaar yahay classkan oo keliya u gaar yahay shaqo kuma leh labadaas qodob ayaa muhiim ah private-ka in aad waxayso kee private-ka dhigaa kee public-ka dhigaa wax la mid ah waa in aad dhahdo shaygan inuu gaar ahaado classkan oo java classka ah public access-ka waxa waaye marmarka qaar ayaa waxay u baahan tahay methodkii variable-ka in si guud ahaan loo arko xanibaad la'aan in loo arko meel walba laga arko marka dabcan xisaabaadka la isticmaalayo kalaasyo fara badanaa la sameeyaa iyo shaqooyin fara badan oo finance iyo wax lamid ah waxaad rabtaa marka in shay kasta la arko dabcan calculatorka oo kale marka la isticmaalayo kale aad u shaqo badan yahay soo ma laakiinse laba shay ayaa shaqada qabato waa mid hal variable oo qabanayo xogta koowaad iyo hal variable xogta labaad qabanayo isku dar kala jar x waxaas isticmaal waxaas oo dhan waa laba variable oo ugu badan macnaha shaqada inta badan qabanayso labadaas variable haddii aad wax ka dhigta xanibto shaqooyin fara badan xanibnaanaya soo marka meel walba laga arko oo kale markaa dhehaysid waa public-ga ka dhigay midka protected-ka ah waxa waaye waa level kale oo access control wuxuu ku sahlaa sub class macnaha class-ka kala dhaxlay waxa rabtaa wax walba oo kan leeyahay inuu dhaxlo oo laga arko waa protected oo fiican sidoo kale kalaasyada same package inay sarkaan oo kale markaa rabta ayadana protected aad u wanaagsan sababtoo ah maxaa qodobkan loogu soo daray same package loo dhihi waayo sababtoo waxa waaye waxa laga yaabaa classkan inuu dhaxlo class kale aan shaqo ku lahayn ayaa laga yaabaa inuu dhaxlo accessor method dabcan haddaa mar private ka dhigto waxaan hore u sheegnay variable-ka haddaa private ka dhigto classkaas keliya arkayo sooma waxaa la sameeyaa marka si lala macaamilo methodyo shaqada qabto waxaa loo yaqaan accessor methodyadaas waxaan dhahnay set iyo get marka wax lagu shubayana sidaa la isticmaalaa marka laga soo qaadayana gadaa la isticmaalaa methodyadaas waxaa qasab ah inay noqdaan default ama waa inay noqdaan public protected iyo macnaha waxyaabahaas haddaad ka dhigto weli waxaa ku sii xadiday package-ki iyo levelka marka waxaa la isticmaalaa inta badan public ayaa laga dhigaa accessorkan
وانا استعمالك variable set معناها ميثوديada set iyo get mar hadaad xanibto waa in la helaa wax la falgalo shaqada ka qabto marna wax ku shubi karo marna wax ka soo bixi karo static horaan soo aragnay static variable iyo methodka wuxuu sameeyaa aan lahaynay class variable iyo class method oo ahaayeen in shaqadan lagu access garay karo variable-da noocaas oo kala ah oo class variable ama class method ah class magaciisa in lagu access gareeyo ayakana waxa laga dhigaa mar walba public si loo arko final markaad macnaynana final waxa soo aragnay variable ina final kaliya ka dhigno waxaan dhahnay wuxuu ka dhigaa variable-ka constant oo la macnaa qiimo aanan isbedelayn finalka waxa loo isticmaalaa class-ka waa goormay class-kaas goormay final ka dhigana waa marka aad leedahay wax yeesan dhaxlay class-kan dabcan waxa la sameeyaa Soomahan hierarchy kala sareen oo class-kan waxa dhaxlaya another class oo muxuu ahaay sub class oo noqonayo class-kan marka aad rabtid in laga sameeynin sub class ayaa waxa ka dhigay final class-ka muxuu noqonaa lama dhaxli karo oo in aan dhahno class kala sameysano extend class hebel isagoo final ah waa mamnuuc marka methodka markaan u isticmaalno oo aan final ka dhigno isagana maxaa ula jeednaa override ma jiro override waa fahmayna soo ma class-kan waxaa sameysanay class kale oo sub class ah oo class-ka hore dhaxlaya class-ka hore wuxuu lahaa variable iyo method waxa awood u leenahay methodyadaas in aan method ku magaca laakiin si shaqada uu qabanayo xogaan anfici weyso waxaan dhahnay method shaqadeena qabanayo inaan sameysano oo isku magaca ma fahmayna final hadduu yahay super class-ka parent class-ka hadduu final ka ahaa methodkaas waxaa mamnuuc ah in aan anaga inta waxa ka sameyno override inaan sameyno waa mamnuuc wuxuu u diidaa kaliya methodkan in lagu sameeyo override class-yada kasta dhaxli doono in ay override ka dhigaan ayaa mamnuuc ah shaqada set hay u isticmaalayaan ama waa ka tagayaan oo waxba ma ka bedeli karaan variable hore u sheegnay variable-da waxaan dhahnay waxay ka dhigayaan constant qiimahooda aan isbedelayn labada kale laakiin methodka wuxuu ka dhigaa override ama mamnuuc sida midkaan oo kale hadda example-kan methodkan waxaa noo samaysan get signature shaqo qabana shaqadaana naafici weyse waxaa laga yaabaa in aan anaga samaysano method la dhahay magaciisa get signature oo isla qaabkaan ah waa mamnuuc ma samey kari method magacaan wato oo ah isla data type-ka noocaas oo kale ah override mamnuuc ogeya the common reason why sababta meeshaana ku xusan tahay inta hadda sheegay dabcan isha hore u maraya abstract class and method abstract waxaa la sameeyaa marmarka qaar aad muhiim u tahay class hierarchy markaa sameynayso class kala dhaxlaayo shaqada hal meel ay ka socoto marmarka qaar muxuu ahay qaar class-yada la dhaxlaayo class shaqadiisa gooniya inuu isaga qabsadaa laga yaabaa for example waxaan dhahnay jaamacaddan student iyo waxaa jiro macallimiin iyo shaqaale sooma oo staff caadi ah staffyadaas kala sareeyaan kala sareeyaan muhiim ah saddex shay aa loo qaybiyo saddexdooda maxay ka sameeyeen saddexdooda waa bini aadam sooma waa dad magacuu leeyahay ID leeyahay macnaha waxyaabo badan
oo islaha jiro waxaa samaysan class la hayo person macallin ma sheegin ma kala qaado laakiin waxaan sameynaa maxay dhammaantood u baahan yihiin kulligood waxyaabaha ay ka wada mid yihiin ay hal meel isugu qabanaa classkaas person shaqo sidaas ah kama socoto waxaan ugu talagalay kaliya in xog oo ii keedi person ii keeda xogtiisa dhag hadhowtiya gadaalka siinaa in aan dhaho student oo class student aan samaysto oo hadhowti personkaas isoo qabo aan dhaho ilaa xogtii wixii oo dhan oo hayaa soo maha xogtaas aan inta ku dabaqdo class studentiga shaqadiisii aan ku dabaqdo isla classkan student halka classkaas kale xog haaye bas ahaa sida list fail oo inta iyaalo kale shaqada class kale ka socotaa marmarka noocaas oo kale waa loo baahan yahay waana shaqada inta badan waxyaabaha hadda mar programminaysid dabcan waa arki doontaa abstract class waa loo baahnaana class keed bas kuu noqdo memory management oo xogta bas kuu keedo waxaa laga yaabaa variable xogtaas kuma keedi karo haddii integer yahay number bas kuu qabanaa haddii uu yahay insheeg string kaliya kuu qabanaa laakiin waxa u baahatay variable waxaasoo dhan hal mar wada qabanayo waa object ay qabanayo soo ma object waxa laga yaabaa inaad samayso integer wixii oo dhan hal mar laakiin objectigaas shaqo uma haysta waxa u haystaa keediya sida variable oo kale noocaas oo kale kalaasyada ah waa la samaysaa waana loo baahan yahay waxaa loo yaqaanaa abstract class waa class aanan dhammaystirnayn macnaha shaqo dhammaystiran ma qabanayo waa xog keediya bas qeexitaanka intuu muxuu ahay si fiican ugu sharxaa waxa waaye waa class ku qidmeynayo sida place to hold common behavior waa meel ku qabanayso xog common behavior ama attribute ahaado ay wadaagi doonaan kalaasyada kala dhaxli doono classkan kalaasyada noocaas ayaa waxa loo yaqaanaa abstract class marka la sameynayana classka waxa laga hormariyaa kaliya abstract dhaxdiisa shaqo kama dhici doonto dhaxdiisa kaliya maxaa lagu qabanaa keedin bas oo waxina ku keedi macluumaad ku keedi bas oo qabsanay marka la sameynayo class magacii aan sheegayna soo ma kan waa modifierkii public haddaan dhahna waa kulli hala arko abstractigana wuxuu ka dhigay classkan in isaga shaqo qabta ahaan oo yahay xogkeedii package aa gudubno package si kooban waxaa u dhahnay waa xendaab loo sameynayo kalaasyada java inta isku shaqo ah oo kale for example in hal meel isugu xidho package-ka waa hab lagu maamulo laisku organize gareeyo classeska wuxuu mar walba ka kooban yahay classyo kuwaas oo isla xiriira waxay iskala xiriiraan dhanka purpose ujeedkoo kale ay ka wada xiriiraan ama waxay ka wada xiriiraan dhanka scope-ka hal mar ay shaqadooda bilaabanaya hal mar ay shaqadoodana xirmay ama habka dhaxalka oo kale ay muxuu ahaay laga midayaa baakajyada marka intaas oo xambaari kara oo hay karaa kalaasyadaas waxay noqonayaan in ay noqdaan isku ujeedo macnaha hal shaqo kale ka dhaxay karto ama waxay noqon karaan shaqadooda ay isku macnaha xendaabkooda ay isku xiran scope-kooda hal mar ay shaqadooda isla bilaabanayaan hal marna waa isla xirmay baakajyada waxay useful yihiin sababaha baakajka loo sameeyo waxaa ka mid ah in lagu suurtageliyo kalaasyadaada in aad ka dhigto unit qaybo aad ka dhigto marka aad u baahan tahay kalaasyadaada in aad xirto ayaa waxaa la sameeyaa ayaa la isticmaalaa sabab kale waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo problemyada ka dhexdhici karo
magacyada waxaa laga yaabaa kalaasyo oo same hal magaca inaad samaysanayso shaqooyinkoodana kala duwan yahay waxaa laga yaabaa class student class kale oo student ah inaad samayso dan iyo micnaha hool ugu qasto in labadaas class isku magacan ka dhigo maxaan sameynaa باكجيدا kala duwan laba package ayaa kala gelinaa in lagu suurtageliyo class-ka la ilaaliyo protect lagu sameeyo class-ka variable-lada method-ka laga ilaaliyo class-yada kale aysan arkin marka la rabo in la kala xiro shaygan oo la kala xiro la rabo ayaa la isticmaalaa package-ka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in uu u noqdo unique identity sifo ama muxuu ahaa ID qaas ah shaqo gaar ah inay u noqoto for example student registration aan sameeynaa waa shaqo gooni ah soo ma inaan u bixino package ka dhahno student registration oo wax kasta oo registration baahan yahayna oo meeshaas oo ku dhex qaban waxaa laga yaabaa another project oo aan sameyno oo ah finance waa shaqo kale soo ma inaan dhahno package finance bixin micnaha shaqada la qabanayo in ay u noqoto magac ama sifo u gaar ah oo loo bixiyo package-yada marka labada class oo package-yada kala duwan ah sidee loo macaamilaa hadda kor waxaan isticmaalnay class loo yaqaan scanner class-kaas scanner-ka ah kamid ma ahaan package-keena soo ma haddaan u baahano inaan isticmaalno package-ka wax ka baxsan maxaan sameynay import idin tuso midkaan EVC-ga markaa sameynayna waxaan isticmaalnay class scanner muxuu qabanaya xogta ayuu muxuu ahaa oo macnaha keyboardka noogu soo qabanaya si aan u isticmaalno scanner wuxuu ka tirsan yahay package-ka loo yaqaan util package-kaas isagana wuxuu ku dhex jiraa folder loo yaqaan ama java ayuu ku dhex jiraa class-kaana u baahanay inaan isticmaalno maxaan u baahanay marka ugu horeeyo in aan u yeerno wacanno class-kaas sababtoo ah class hebel qalina inta ka waayo class hebeliga soo qaada ardayda waa inaa aadaa soo ma oo ayakii ilbaabku quraac lahay qalin haliisii dhaha okay waa marka ugu horeeyo waa in aad soo import garaysaa haddii ay class-yada hal package ay iskula jirin maxaa u baahan tahay import laakiinse su'aal systemkan waa class package-kaygana kama tirsana importna ma sameyn sidee u isticmaal java package-ka loo yaqaan java.lang package lahaa jiro package-kaas wax kasta class-yada kasta oo gudihiisa ku jiro waxaa si default ah ayaan u arki karnaa package-yada kale oo aan langiga ahayn hadda package-kan waa util saa u jeedid package-kan waa util package-yada kale oo aan langiga ahayn waxaan u baahannahay dhammaantood inaan import ku sameyno inta aanan isticmaalin class-ka waxaa ka mid ah class-kan loo yaqaan date wuxuu ka tirsan yahay package-ka util laakiinse ma aanan soo hal mar aan soo qaadano waxaan u baahanahay inaan isagana import ku sameeyo oo aan dhaho import java waa package kasta magacaas waa inaan ka hormariyaa
dot يوسف maxaan qalday iraajo import java culays computerka iga jira miya dot util inuu soo baxo waa soo daatay ahayd dot waxaan oo dhan kalaasyo oo util ka tirsan waayo mid kasta markaan raba inaan isticmaalo waxaan ku qasbanahay waa kan update-ka hadda sheegayna waxaan ku qasbanahay in aan mid kasta oo aan soo magacaabo okay util class ayaa waxaan ka rabaa inaan isticmaalo date-kaana rabaa inaan isticmaalo currency inaan isticmaalaan rabaa waxyaabo aad u tiro badan inaan isticmaalan rabaa mid meeshaan ka sheegi lahaa meeshaan ka sheegi lahaa dhihi lahaa class dhihi lahaa waxaan samayn karaa in aan dhaho hal mar kulligood isoo import garay aan saan isticmaalo waxaan isticmaalaa asarkiisaas kanna waan iska xiraa asrix waxay u dhigan tahay dhammaan kalaasyada utilka ku jiro in leedhax keeno isticmaalkooda lii fududeeyo okay hadda waa kan class scanner wax cilad ah ma qabo ya ha import yoo haysaa macnaha kulliyaa soo import garay isagii ka qayb ka ahay laakiinse markay noocaan oo kale tahay waa laga fiican yahay sababtoo ah space-ka ayuu ku kordhinaa sababtoo intaas kalaas oo dhan hal mar raamka la soo wada saara midkaad isticmaashay midka kale java horaa soo sheegnay jvm waxay shaqo ku leedahay in kala isticmaalaa kala la isticmaalay maanta dhan oo shaqeeyo midka ma la isticmaalay xanib midka macnaha shaqo ku gala shaqadaas raamka ama shaqo culays ayuu ku sababay programka mar hadiisan boqolkiiba 40 ama boqolkiiba 50 kalaasida ku jira meeshaas aadan isticmaalin waxa aad u fiican in sida hadda aan sameeyno kale iskaan kaliyaanka isticmaaleen inaan wacno iskaan dayda rabna inaan isticmaalno waa kalaasida inta badan loo isticmaal badan in aan dhahno dayd malfahma macnaha culays dhankaas laga ordaa ayad oo la dhehayni laakiin waa dhihi kartaa haddana haddaad mar kulli soo wada degsatana waa isticmaali kartaa marka all marka la hayo muxuu u fiican yahay all marka la hayo muxuu u fiican yahay all marka la hayo waa marka oo aadan rabin shaqo dheeri ah ama raadin ama wax badan aadan u baahnayn waxaad ogtahay kaliya inuu package-kaas ku dhex jiro dhowr kalaas aad u baahan tahay inaad isticmaasho hal mar ayaa all la dhahaa okay import declaration qaabkee loo import gareynaa waa import java.util.arraylist waa another class oo aad loo isticmaalo arraylist-gan waxaa la isticmaalaa abstract classeska waxyaabaha aad ugu baahan tahay list wuxuu kuu sameynaa aad u qurux badan waa import haddana java package kale oo awt la hayo graphic use iyo waxyaabahaas loo isticmaalaa importiga qaabkaas ayaa loo isticmaalaa class name conflicts sidoo kale importiga markaa sameynaysid waxaa jiro kalaasyo isku magaca laba package ku kala jiro labadaas package-na waxay isla leeyihiin laba kalaas isku magaca marka noocaas oo kale ah oo aad sameynaysid waa dhaceeb
إلى database marka Java 2 kala database ku arki doontaan database-ka wuxuu leeyahay class date u gaar ah Java util-kana wuxuu leeyahay class date u gaar ah sida hadda aad aragtay database-ka wuxuu isticmaalaa dabcan MySQL iyo MySQL iyo waxyaabaha soo dhan database-yada dhan date-ka ay isticmaalaan iyo computer-ka date-ka oo isticmaalo waa kala duwan yihiin naqshad ahaan iyo waxyaabo badan ay kala duwan yihiin midka database-ka isticmaalo naqshad gooni ah oo leeyahay oo ma suurtagelayso java.util.date-ka waa habka date-ka computer-kaada oo sameysay caadiga ah window-ga habka uu sameysay caadiga ah waay xogtaas ayuu ku siinaa xogtaas date-kaas inaad qaadato safe field oo SQL ku diyaarsan oo date ah ma ku save garay kartid waa inaad u martaa database-ka mid ay ugu talagaleen oo date-ka ah conflict ya dhacay waxa dhahday waxa soo import gareysay java.util.date oo date-ka caadiga ah u isticmaalaysay iyo midka database-ka soo import gareysay labada kalaas waxay isla yihiin date iyo date kee isticmaaloosa waxa dhahday date taariikh hebel date aa ku jirtaa midkaan midkii database-ka wata ama midkaan midka util wata ila labadu waa import gareysay waxa la sameey doonaa sida hadda ay sheegay all in la sameeyo util all dhahday waxa ku jira class date database-ka midka uu isticmaali doonto hadhowtana waxa dhigi doontaa all waa dhacayba hoos waxaad sheegtay kaliya sida scanner oo kale object date sameysay object-gaas date-ka aad sameysay ma midkii database-a mise midkii oo ahaa util-ka caadiga ah ina kala sheegto waay marka noocaas ay yihiin oo soo implement gareyso labadoodina soo implement gareyso maxaa sameynaa gudaha waxaa sameynaysaa in aad isticmaasho package-ka oo dhameystiran sida hadda meeshaan waxaan dhahnay .all aan dhahnay sidoo kalena waxaa jiraan dhahnay java.sql import java.sql isigana date oo leeyahay si aad u jeedid meeshaas waxaan dhahnay all labadan package waxay wataan laba class isku magac ah okay inta rabaa inaan isticmaalo waxaan dhahay class date now object-gaan oo hadda ah ayaa rabaa inaan sameeyo semicolon hoos ayaa rabaa inaan wax ka sameeyo isla markii muxuu soo qoraa waa qalad sababtoo ah kee isticmaaloosa waa laba dheede kee isticmaaloosa markay noocaan oo kala tahay midka isticmaalaysid in aad xusto oo soo bilaabo aad dhahdid java.util.date midkaana isticmaalaya ma aragtaa waxaa ka baxay qaladka in aad u abtiriso war hebel class hebel ku jira aan rabaa aan dhahdo mala faham import kaliya ku anfici maayo haddii marba kalaasyada ay isku magac noqdaan laba package kala duwan ay ku kala jiraan waa in aad xustaa midka uu yahay oo aad sheegtaa waa habka loo xaliyo kalaasyada isku magaca ah oo laba package-yada kala duwan ku jiro package ku gaar ah qaabkee u sameynaa maxaa lagaaga baahan yahay package ku gaar ah markaa sameynayso koodi hore waa inaad ka fikirtaa first step waa inaad ka fikirtaa magac aad sii lahayd magac aad u bixi lahayd java ama oracle ayadaa gacanta ku hayso waxaa laga yaabaa package-ka aad sameysay inaad ka dhigto open source macnaha oo aad ku darto java waxyaabaha ay leedahay laga faa'iido wixii ka dambeeyo sida hadda java.util iyo waxyaabahaas oo kale ah waxaa jiro package-yo ay dad gaar ah sameeyaan package-yo dad gaar ah sameeyeen
ku tabarucay java in horumarkeeda oo ka qayb qaato shaqooyin gaar ah sida hadda java ma lahan dabcan vb waa dhigataan soo ma date-ko kale waxaa soo qaadataa ii sheeg date oo caadi ah soo qaadanay folder macnaha waa soo jiiday computerkaada soo dhiganay soo ma wuxuu ku noqonaa qaabkii date-ka kaliya markaad siiso waa soo daadanaa taariikhda meel rabtaa ka dooranay java netbeans ma laha netbeans ma lahan date oo sidaas qaabkaas oo kale loo isticmaalayo date haddaad rabtid habkii hadda ahay inaad sheegno oo samaysid waay dadaa marka waxa ku tabarucay date-ka qaabkaas oo kale uu soo sameeyey oo in aad soo jiidatid midaad soo jiidanaysa soo dhiganaysid oo kale ah waa ka baxsan yahay netbeans shirkadda toosa dadaa sameeyey kusoo tabarucay noocaasoo kale markuu yahay package uu sameeyey waxyaabahaas oo dhan okay package markaad magac u sameynaysid oracle oo kale waxay soo jeediyeen dabcan website-aa leedahay website-ka qofkii oo program ama wax sameynaya ama waxyaabo website lagala xiriir inuu sameeyo fiican website oo leeyahay website-kaada gadaal loo akhriyaa ama magac looga dhigaa for example tusaale ahaan google shirkadaas ah ayaa waxa sameysay programka netbeans lahayn laakiin soo ugu tabarucday oasis ku dareena maxaa magac package looga dhigaa waxay soo jeediyeen in la dhaho com.google in la dhaho kale in gadaal loo akhriyo cinwaankaada si oo u noqdo aqoonsi aad adin leedahay macnaha hebel shaqadiisa ah la dhaho kale marka ugu horeeya waa magac waxaa bixin kartaa si hore u sheegnay shaqo barnaamijkan shaqo hebel oo qabanayo shaqada ku koobta oracle-na waxay soo jeedisay in loo bixiyo magaca package-ka ku dabaq magacaada ama aqoonsigaada ku dabaq oo website haddaa leedahay gadaal u akhri org dadaa leh soo ma dadba waxay leeyihiin org dot magaci com dot magaci hadda waxaa noo samaysan dot soo ma soo dot magaci ama shaqadii adi lagu qabanayo ama cinwaankaada raaci marka labaad waxaa diyaarinaya structure-ka oo folderka leeyahay ilaa waxaan hore u sheegnay package-kan waa folderkaas structure-kiisaa diyaarinaya habka iyo naqshadda oo yeelanayo dabcan naqshad wuxuu yeelan karaa hore aan u sheegnay wixii isku shaqo oo dhan inaan hal meel isugu xeeyo wuxuu yeelan karaa kalaasyo isku magac ah ayaad rabtaa inaad isticmaasho laakiin shaqooyinkooda kala duwan yahay baakajyada habkaas naqshad noocaas ah inay kugu samaysnaato package-ka see class ugu sameynay oo class aad ugu daraysaa si hore u sheegnay package hadda mar sameyso classka sameyntiisana aad u fudud yahay waxaan rabnaa in aan package sameyno classna ku darno maxaan sameynaynaa hadda waxaan sameysanaa dhahnay package-kan waa package-ka guud oo tusaale ahaan haddaan rabno inaan ka dhigno ama haddaan rabno inaan ka dhigno package kale dhinacaya si package loo sameeyo class oo java waxaa kor tagaysaa package-kaas meesha aad dhigi lahayd for example hadda waxaan rabnaa package-kan package lamid ah oo micnaha isgarab yaal inaan ka dhigno maxaan leenahay package ugu koreeyo ayaa right click dhahaa new maxaa ii doornaan package-ka ayaa kor tagaa right click new folder ayaa ka doornaa ama waxaan dooranaa package java package shayga ugu horeeyo waa inaan magac aan u sameeyaa waa in aan magac u sameeyaa for example com dot sida hadda la sheegayo kale google aan leenahay sidaas oo kale kadib finish waxaa noo samaysmay another package
باكج سمينتيس وحنا أنا وحقول مهمسن مقعد وبحلها دينا كذور كيف فكرته مقع أدي كنت الماما وبحي أما مقع شقة اللو قبنايو وبحي أوكي كلاس يقول درا باكج كركي سانتيا رايت كليك نيو كلاس جافا كلاس أي فرق لا ملفا اوكي مركان جافا كلاس نيو ده مقعنا وبحثنا كلاس كان std ده سو غابي فينيش ده اوكي باكج كان محو ليهي مقعيس وحال لها com.google كلاس كان وامدك بروجكت هذا فيري مركه com.google وون كلاس هوستل مid كان باكج كان محا هوستل لبا كلاس qaabka isku arkayaan hore oo soo sheegnay public iyo waxyaabaha ahaa waxaan rabaa inaan isticmaalo student class kan ayaa rabaa inaan isticmaalo maxaa ku qasbanahay in aan import ku soo sameeyo oo aan dhaho import package link aan xus mala fahma sida hadda oo scanner class markaa rabnaa inaan isticmaalo waxa u yeernay class باكج كيسي ويرنا هذانا إن عندنا import باكج كان مقعي سمحوها إلى student class ربنا هنا استعمال الصومة مقعي سوكو بيسننا control C وحلاها import باكج مقعاس له دوت لبضة كلاس هوري صوبحايا كاربتا إن import جريس student ملفهم قابكي لو import جرينا باكج طبعا باكج إذا حد قوى عن السمستر هو سأدرت مقع بحية شان مقعي أو عن باكج شيء بحصل وأنا هبك لو استعمال الدونا هدو تهداد كدكت open source دت كده استعمالها يعني وحي أركض دونا باكج كاس مقعاس importiyada oo aan dhaheena hadoo kale java iyo waxaa sameeyay netbase caadiga ah oracle ayaa kuwaas mas'uulka ah waxay oracle mas'uulka ahaan waxay dhahday u bixi magacaada si aqoonsi adag ku noqdo com.hebel ama org.hebel waxa noocaas ah soo adag ku tilmaamo kadib shaqadii kalaasyada iyo wixii kala sheeg باكج access ka iyo control qaabka loo arkaa qaabka ii sheeg hore u soo sheegnay afarta shay defaultiga publica iyo private iyo protected mid kastana shaqadu kala qabanayaan hore u sheegnay interface ayaa soo heray kalaas waxaa dhahanay waa naqshad guud aad ugu tala gashay in dhowr shay laga sameeyo naqshadaas sameeyay waxaan dhahay isha guri oo kale hal naqshad sameey waxa laga yaabaa naqshadaas ee dhowr guri laga sameeyo soma waa naqshad complete ah oo guriyahaas ay kala xiran yihiin waxyaabahaas oo kale interface waa sida abstract class waxna waa kaga duwan yahay wuxuu abstract class ka mid yahay shaqo isiga oo toos u qabanayo ma jirto waa shaqo aad adigu ku qabsanayso wuxuu kaga duwan yahay waxaan rabtaa tusaale shaqo oo dhowr siyaabood dhowr ufood si gooni ah u kala isticmaali doonto si gooni ah qof walba si gooni ah u isticmaalaa shaqada noocaas oo kale waxaa la sameeyaa interface tusaale ahaan guriyaa dhisatay dabcan hadda sida bakaara hadda la sameeyo oo kale guriga waxaa kaliya la dhisaa geesaha isaga dhan koraa loo qaadaa wax qalal kala xiran ma lahan qofkii baqaar u baahan oo kale baqaaroo leeyahay maxay u baahan tahay guriga dhana u baahan ah waa kukan waa mexerna qofka imaanaya wuxuu leeyahay ninkii markuu ka baxo neeho aan guriga dhan qaadan karo saddex qayb waaye laba isi labadii ayaa loo xiraa mid kale imaanaya hadoo markii qofkii adan ka baxo wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay hal qayb kamid ah saddex qofood ay imaatay kala duwan
ninkasto waa loo kala qaybinaa macnaha waa guri dhisan laakiinse lahayn kala xadidnayn aan kala xirnayn qofkii imaado ayaa qaabaysanaya siduu u baahan yahay waa inta badan hadda waa la sameeyaa guryaha laga rabo iskuul ama isheeg laga rabo isbitaal ama isaga ma lahan mashruuci gurigii uu leeyahay in laga kiriso raba waxay imaanayo kiriso karo qof isbitaal ah naqshad gooniya isbitaal loo habeeyaa soo ma qofkii isaga kala xirnayo guri faaruq ah la siina isaga kala xirnayo waxa kiriso karo shirkad xafiisi iyo muxuu ahaa rabto in loo kala xiro qolalka yar yar iyo waxa rabtaa qof walba shaqo ku qabanayo hoolal iyo waxa ka rabtaa isagana waa loo kala xiraa hoteelada waa aragtay hoolal waaweyn waa soo ma waa iska furan yahay hoolkaas waxaa laga dhigaa hadii la rabo qolal hadii la rabo waxaa laga dhigaa hoolkiisa loo deynaa marba si aan loola isticmaalaa waa hadba baahida taagan marka kalaas method ayaa waxa rabtaa in oo shaqo lagu qabsanayo adigu aad ogtahay in shaqo lagu qabsanayo laakiin se waxa laga yaabaa adigana shaqo gooni ku qabsato marka isticmaalayso methodkaas qofkaana si kale gooni u isticmaalayo oo shaqada shaqo aan ahayn ka duwan isticmaalayo noocaas oo kale marka rabto waxa la sameeyaa interface class-ka waxa laga dhigaa interface sida class-ka loo sameeyo kalaasina loo sameeyaa kaliya wuxuu kaga duwan yahay methodyada shaqadaas lagu qabsanayo waxa laga dhigaa kuwa banaan adi shaqadaada gooniya u qabso adeegana shaqadaada gooniya intaas waxaa ku eg qaabkee loo implement gareeyaa interfaceyo waxaa jira hadda ii sheeg interfaceyo diyaarsan oo Java ugu tala gashay waxaad arki doontaan xisada soo socota waxa ku jiro kala threadka xisada soo socota waxa waaye wuxuu ka hadlaa jabtarka soo socdo baaki wuxuu ka hadlaa exception iyo threadka waa interface diyaarsan loo yaqaan runnable ayaa la isticmaalaa waa sida class-ka camal uu egyahay waa diyaarsan yahay adigu waa implement gareene runnable laakiinse maxaa diyaarsaneen methodyada oo isaga wato muxuu ahaa kaliya naqshad ahaan loo diyaarsan yihiin shaqooyin macayna adi shaqada doonto ku qabsanay ninkan shaqada doonto ku qabsanay waa arki doontaan insha Allah waa kana class-kan fiiri class-kan hadda la sameeyay magacaan waxa leeyahay meesha extend loo isticmaalayo class-yada inuu dhaxlaayo midkaan maxaa la isticmaalaa implementis ee la isticmaalaa implementis runnable alle thread markaa sameynaysid jabtarka soo socdo ayaad arki doontaa kala midkaan runnable kan waa capital xarafka ugu horeeyo sida class-ka kale habka sida class-ka kale loo sameeyaa laakiin se marka la hirgelinayo waa ka duwan yahay waxa la isticmaalaa implement class-ka okay class-ka runnable wuxuu leeyahay methodyo dhowr ah methodyo leeyahay waxa laga rabaa marka adiga inaad shaqo ku qabsato methodyadaas waa methodyo banaan magac ahaan bas diyaarsan yihiin ma diyaarsana shaqadooda marka shaqada adaa qabsanayo ninkan waxa laga yaabaa threadkiisa inuu ka dhigo xisada dambe ku arki doontaan sharxadiisa wixii dhan threadka inuu ka dhigto wax yar oo shaqo gooni ah u qabanayo wax qofkan kalena wax yar oo shaqo gooni ah u qaban qofkan saacado wax hol u qabanayo inuu sameeyo shaqada loo qabanayo saacadaas kaga duunaato midkaan kale waxyaabaha noocaas oo kale ah marka insha Allah xisada dambe inkastoo xiso toos aysan jirin waa assignment jabtarkaas waa assignment jabtarka bas waay jabtarkaas waa soo diyaarinaysaa waa soo diyaarsanay wax group ah ma jiro waa soo diyaarsanay waa soo akhrinay waxaad ka fahantay kaliya su'aal laga weydiina dabcan qofkii soo akhriyay qofkan soo akhrin waa kala duwan yahay jabtarka ku xiga waa jabtar 7 waa midkaan
واسو كوبه فهم كهذا كوبنا سو دمستره waxaan ku leeyahay cinwaan hebel exception maxaa laha maxaa laga wadaa maxaa lagu qabsadaa try and catch qaabkee loo isticmaalaa maxay kala yihiin catchka muxuu qabanaa tryga muxuu qabanaa intaas ugu muhiimsan waa chapter kooban laakiin si fahamkiisa balaaran shaqooyinka ugu muhiimsanna waa midkaan wax lagu qaban doono Java 2 marka la isticmaalayo drag and drop formamka iyo waxyaabahaas oo dhan waxaa la isticmaali doonaa exceptionka threadka inta badan lama isticmaalo threadka waxaa isticmaalo badanaa dadka gameamka iyo waxyaabahaas diyaariyo ama rabo in hal waqti dhowr shaqo loo qabto baahi noocaas ahna inta badan ma jirto programyada la diyaariyo kaliya waxay ka jirtaa baahida noocaas ah gameska dabcan game waa dhiilna soo mobilka ku shubanaa mid dagaal mid baabuur wax la mid ah adi baabuura maamule baabuurta kale yaa maamula dartana galay muxuu ahay baabuura for example waa soo dibsad adiga waxaad maamushaa kaliya soo maaha hal xabo baabuurta kale kula tartamayso oo ku cirhinaysa yaa maamulo sareeda maamulo mid kasta sareed gooniyaha maamulo marka dadka gameka sameynaayo waa u baahan yihiin for example hadda game hadda inta badan dadka isticmaalaan oo dagaalka midkaan ah PUBG online waaye gamekaas oo adiga dheelay laakiin marmarka qaar waxa jiro ay dadka inta badan wada joogo yaa la ciyaar computer board dheh ama note dheh ama waxa dhabtay dheh waa computer waa wax kula ciyaaraya computerkaas wax maamulayo waa thread adiga dheelay iyo adiga dheelay inaad hal meel isugu imaataanna ay kulligiin wada dheeshaanna wax maamulayo waxa waaye thread hal waqti ayaa waxa dhacay dhowr shaqo adiga shaqadaada gooniga meelo kala duwan aad ku degaysiin waa soo imaanaysaa Soomaa waxaan soo dhan waxa maamulayo waxa loo yaqaanaa thread inta badan isticmaalkiisu waa yar laakiin isfahamkiisu waa muhiim haddii aad rabtid shaqooyin hal mar inay dhacaan ma la fahma dadka hadda waxa noo imaaday website haddaan rabno hal website in la sameeyo intaan qofooda hal mar wada gala shaqooyinka websitekaas kala maamulaya laakiin hore intoosan website imaanin xog waa la isdhaafsanaya Soomaa computerkan ku jirta kan ayadoo la wada isticmaalayo fiiro Soomaa shaqooyinka noocaas ah oo qofkan hal mar inuu wada dhacdo aykan waxa lagu maamulaa thread oo networking ah website wax la saaro wax ma ahan secure waxa la sameeyaa wax loo yaqaan private network xogta ah in iskala gooshto ay hal rabaa Soomaa ilaan website maxaa laga faa'iidaa adina gasho hebel galo dhamaantii resultiga muxuu ahay meesha lagu soo daabaco kale oo jaamacada qaar hadda waa sameeyaan in ka soo hadda midaan sameysmaan adigoo meel fog jooga in resultigaada aad ogaatid resultiyada noocaas oo kale ah hal mar aad kulligiin inaad wada gashaan laga yaabaa Soomaa xogtana nin walba waa helaa okay private network hadda jaamacada isticmaalayso oo online ka xireen website haddana waxay u baahan tahay hab dhammaan intaad wada gasho ee wada arki karto xogta network la isticmaalaa networkaasna waxa inta badan lagu dabaqaa thread hada soo koobo waxa waaye shaqada in hal mar wada dhacdo la rabo laba shaqo saddex shaqo boqol shaqo in hal mar wada fusho la rabo thread la isticmaalaa exception kana waxa waaye qaladaadka dhacay for example variable isticmaalna waa meesha ugu yar objectiyaad jiro oo ka dhib badan variable isticmaalna integer iyo string iyo wax lamid ah midka integer ah string ina geliyo ama kaar geliyo waa mamnuuc Soomaa haddana miga cilna marka geliyo isla markaa wuxuu leeyahay crash oo sameeyna programka crashkaas inuu sameeyna rabtaa inuu ka aad ka hortagto oo aad dhahdo qaad noocaas aad gashay meesha waa qaladkaada ka saxo programkaadan hore u socdo qaladkaadan ogaad ila mail ID ah waxa laga yaabaa inaa geliyo xarfi iyo magaca ama meel telefoon loogu talagalay xarfi waxa inaa geliyo laga yaabaa oo isaguna soo diido
marka programkaada inuusan crash ku sameyn qalad hadoo jiray xataa inuusan crash sameyn oo bini aadam waa qofkaan u ogolaatay inuu qaldami karo qof dhamaystiran ma jiro waxa laga yaabaa adigoo mobilkaada ku ciyaaraya waxa laga yaabaa inaad isaga ciyaarto mobilka xataa marka qaar soo ma shay muhiim u ah in qalad ka dhaco macnaha inaad u ogolaa kartid qalad inuu dhacayo oo haddana programkaada saameyn ku yeelo exception ka loo isticmaalaa marka topigyada waa aad u fudud yihiin waa yirihiin soo faham qaabka loo isticmaalaa code ahaan xataa program ahaan qaabka loo isticmaalaa loo sameeyaa intaas Soomaali caadi ku sharxay wankan jabtar leeyahay waa sharxay ha qof ayaa sameeyay sharxan qaha cinwaanka sharxay waxa laga yaabaa inaadan dadkan kale la sharxan lahayn inuu maxaa ka tagay maxaa ku daray maxaa u qalday noocaas in la adeegsado marka waa kaas hadoo alla insha Allah xisada dambe revision kana toos oo bixinayna hadoo la heedo insha Allah